bismillahi raxmaani raxiim waad arkaysa maanta ra-iisul wasaare wuxuu ka soo qayb galay kulankii joogtada ahaa ee beryahan ay yeelanayeen guddigii uu magacaabay heer qaran qabaqaabada munaasabadaha xorriyadda iyo midnimada 16 Juun iyo 1 Julaay kulamadoodii baa ra-iisul wasaaruhu ka soo qayb galay si uu u ogaado meesha ay wax noo marayaan runtii ra-iisul wasaare waxaanu warbixin ka siinay qabaqaabadu qaabkay u socoto oo sanadkan la qorsheeyay inay ka duwanaato sanadihii hore abaabul weyn la sameeyo ummadda Soomaaliyeed oo hadda rajadoodii ka soo kabashada dhibaatooyinkii dagaalada sokeeyay ee dawlad xumida ama dawlad la'aanta laga soo baxay in rajadaas ummadda Soomaaliyeed maanta qabto dareenkooda la mideeyo ayaa la qorsheeyay oo munaasabadaha la weyneeyo marka taas awgeed baa ra-iisul wasaaruhu nagala soo qayb galay si fiican baa wax noogu socdaan warbixin fiican baanu siinay isaguna talooyinkii munaasibka ahaa ayuuna siiyey waxaa la qorsheeyey sanadkan sidaan sheegay in la weyneeyo munaasabadaha qaranka sidaas awgeed kulanka maanta ra-iisul wasaaruhu wuxuuna amray inaanu abaabulno ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto sida dawladda dhexe iyo hay'adaheeda oo shaqaalaha dawladdu ku jiraan maamul goboleedyada safaaradaha Soomaaliya diaspora adduunka oo dhan in munaasabadaha qaranka ee qiimaha badan Soomaaliya ugu fadhiya la weyneeyo sida shucuubta kale adduunka u weyneeyaan loo weyneeyo sidaas awgeed baaqaas ayaanu gaarsiinaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaanuna ku dhiirigelinaynaa ummadda Soomaaliyeed kulligood noloshoodu waxay ku hagaagaysaa dawladnimo iyo nidaam iyo iskaashi iyo walaaltinimo iyo dib u heshiisiin iyo nabad iyo nolol marka inay taa ummadda Soomaaliyeed ka shaqeeyaan dawladdooduna waxay diyaar u tahay inay hormuud u noqoto mahadsanid